salaama daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Warqad News TV ku soo dhawaada qodobada wararka habeenimo kuwooda ugu waaweyn. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo cadaadis xooggan lagu saarayo sidii looga celi lahaa maamulka hawada sare ee Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Duulista iyo Gaadiidka Dowladda Soomaaliya oo war culus ka soo saaray go'aanka hay'ad u qaabilsan qaramada midoobay ee qaadanayaan ayaan warkeedan kula wadaagi doonaa. Shirka golaha wadatashiga qaranka oo maalintii saddexaad galay iyo qodobo xasaasi ah oo maanta looga hadlay nuxurka ka soo baxay ayaan warkeedan kugu soo gudbinaynaa. Booliska maamulka Puntland ee gobolka Bari oo bilaabay xirxiridda darawallada taksiyada ee magaalada Boosaaso iyo dowladda Itoobiya oo beegsanaysa qaybo kamid ah dadka ka soo jeeda TPLF oo xabsiyada isugu geysay. Qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahinaynaa tabanteena habeenimo ee u diyaar garooba daawadayaal. mar kale kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada qodobada maqasheen hordhacooda oo ayna faahfaahintooda guda galno. Fadlan waxaan ka codsanaynaa haday tahay marka kugu horeyso soo boqoto YouTube-keena Warqad News TV, subscribe ka saar, muuqaalkana like iyo share ta saar. Sidoo kale page-keena ku soo biir, ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo ayna guda galno faahfaahintooda. haddii ayna ku hormarno dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa halis ugu jirta xilligan in la galo wareega maamulka hawada sare ee dalka kadib talaabooyin la sheegay inay qalad yihiin oo qaaday. Xog ayna ka helnay hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in maamulka hay'adda ay isku dayeen inay sare u qaadaan adeega hawada sare kaas oo loo soo gaabiyay G2A. Isku dayga sare u qaadida adeega hawada sare ayaa waxa ku soo aaday iyadoo hay'adaha caalamiga ah ee loo soo gaabiyay magacyadooda ICAO iyo sidoo kale IATA ay ka muujiyeen walaac dhanka badqabka duulimaadka hawada sare ee Soomaaliya taas oo ka dhalatay digniin ah in gabi ahaanba la faray hay'adaha duulimaadka rayidka ee Soomaaliyeed inay sida ugu dhaqsiyaha badan u joojiyaan ayna u qaadaan tillaabooyinka loo soo jeedinayo maadaama arrintan ay caqabad ku tahay dhanka duulimaadka ee hawada sare ku ah. Warbixin dheer oo ay soo saartay hay'adda magaceeda loo soo gaabiyo ICOA oo ah hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha duulimaadka caalamiga ah 16 bishii hore ee December 2021 ayuu ku boorisay madaxda maamulka sare ee hawada Soomaaliya isku dayda sare u qaadinta ay ka dhalo doonto walaacan weyn oo dhanka badqabka taas oo gabi ahaanba xiri doonta maritaanka hawada sare ee Soomaaliya. Warbixin dheer oo iyadana dhankeeda hay'adda IATA ay soo saartay 23 bishii hore ee December 2021 ayay ku sheegtay in hay'adda duulista Soomaaliya in ay dib u dhigaan qorshahan isla markaana ay gabi ahaanba ka saaraan dukumiintiga qaldan ee lagu faafiyo waa sida Xuseene. Waxaa jira qorshe sanadkii 2017 shir ay ka dhacay magaalada Mumbai ee dalka Hindiya lagu qorsheynayay in hawada sare ee Soomaaliya lagu wareejiyo dowlad kale ama shirkado gaar ah hase yeeshee fashilantay. Arrintan ayaa keenaysa in qorshihii hore ee fashilmay dib u soo cusboonaysiiso iyadoona lagu sababeynayo sare u qaadida adeega hawada sare isla markaana ay ka dhalan doonto in ICAO dib ula wareegi doonto maamulka hawada sare taas oo markii horeba laga soo celiyay 28 December 2017 iyadoo la ogeyn sida ay Soomaaliya u dhaqan gali doonto. 6 January 2022 oo ku beegan maalinta bariyaha ayaa la filayaa inuu dhaco shir aalada fogaan arag ah oo ay ku soo qayb galayaan hay'adaha duulimaadka caalamiga u qaabilsan qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo magacyadooda ICAO iyo sidoo kale IATA taas oo lagu marti qaaday si ay sharaxaad ugu bixiyaan sababaha dhaliyay in hay'adaha Soomaaliya inay u diyaarsamaan dadejinta qorshayaashan xilligan jiro. Dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa warkaas been abuur ku tilmaamay lagu faafiyo baraha bulshada. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda xilgaarsiinta Durraan Axmed Faarax ayaa maanta oo taariikhda tahay 5 bisha Janaayo 2021 beeniyay warka lagu faafiyo baraha bulshada kuwaas oo la xiriira maamulka hawada sare ee dalkeena Soomaaliya. Wasiir Durraan Axmed Faarax ayaa waxba kama jiraan oo ku sheegay in maamulka hawada sare ee dalka lagu wareejinayo shirkado gaar loo leeyahay taas oo fadhigeedu yahay Mareykanka. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo mas'uul uga tahay maamulka hawada u qorsheysan in maamulka hawada ay kula wareegto shirkad gaar loo leeyahay waa wax been abuur warkaas lagu faafiyo baraha bulshada ayuu yiri Wasiir Durraan Axmed Faarax. Soomaaliya iyada ayaa maamulata hawadeeda tan waxay qayb ka tahay horumarada ay ku tilaabsatay dowladda Soomaaliya ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka ayaa sheegay in hadallada ka soo baxay hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan ay dhanka duulimaadyada
kuwa been abuur isla markaana qaybo kamid aysan waxba ka jirin Soomaaliyana si buuxda hawadeeda u maamulato dadka faragelinta ku hayana aysan kala arrinsan doonin tilaabooyinka ay qaadayaan waa sida Xusay wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed u sheegay in wararkan haatan baraha bulshada lagu faafiyay yihiin kuwa been abuura inkastoo wararka ay ka soo baxeen hay'ado international oo caalami ah oo qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha duulimaadka hawada sare si kastaba ha ahaatee biri ayaa la qorsheynayaa washir afwan araga oo maamulka hawada sare ee duulimaadka Soomaaliya iyo sidoo kale qoboro ka socota qaramada midoobay iyo dawlado kale ee reer galbeedka ah in ay qabsoomo kaas oo arrimaha muranka haatan ka taagan yahay lagu lafaguri doono golaha wadatashiga qaranka ayaa maanta kulankoodii ku yeeshay magaalada Muqdisho ka oo arrimaha doorashada looga hadlayay waxayna kulan dhankooda la yeesheen ururada bulshada rayidka ah oo doorashooyinka dalka qodobo la xiriira ay ka wada hadleen golaha wadatashiga qaranka ayaa la kulma wakiilo ka socda ururada bulshada rayidka ah haweenka Soomaaliyeed oo ay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka dalka ka gudubka caqabadaha xilligan hortaagan doorashooyinka kulankan waxaa shir gudoominaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaana goobjoog ka ah madaxda dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish hadal jeedinta ayaa la siiyay wakiilada ka socda bulshada rayidka si aragtidooda uga biiriyaan qaabka looga gudbi karo caqabadaha hortaagan doorashooyinka dalka qaabka looga gudbin karo kaalinta ay ka qaadan karaan xilligaani golaha wadatashiga qaranka waxa uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la yeeshay wakiilada ka socda bulshada rayidka haweenka Soomaaliyeed oo ay ka wada hadleen dardargelinta howlaha doorashooyinka iyagoo ka dhageystay tilaabooyinka ku aadan xubnaanta doorashada iyo xaqiijinta qoondada haweenka ee golaha shacabka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee xukuumadda xilgaarsiinta golaha wadatashiga qaranka ayaa shalay la kulmay wakiilo ka kala socday beesha caalamka iyo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka waxayna isdhaafsadeen aragtida la xiriirta sida looga gudbi karo caqabadaha doorashooyinka daadejinta jadwalka lagu dhameystirayo laguna soo ganaanudayo doorashada shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa waxa uu galay wajigii ugu dambeeyay waxaana gunaanadka lagu wada in laga soo saaro warmartiyeed lagu cadeynayo qodobada lagu heshiiyay iyo waqtiga la soo gabagabeynayo doorashada dalka iyo isbedelada ku soo kordhay madaxda ayaa sidoo kale maanta kulankooda diiradda ku saaray golaha wadatashiga qaranka arrimihii ugu dambeeyay amniga dalka iyo sida doorashada loo dardargeli lahaa isla markaana waxay dhankooda ka wada hadleen ururada bulshada doorkooda ku aadan ka qayb qaadashada doorashada si kastaba ha ahaatee u dhowaan ayaa la qorsheynayaa in ay soo gabagabeeyaan kulanka golaha wadatashiga qaranka oo maalmihii dambe ka socday magaalada Muqdisho kaas oo ay ka qayb galeen ururada bulshada rayidka midowga musharaxiinta mucaaradka iyo xubno ka socda beesha caalamka oo hore ra'iisul wasaare Rooble uu sheegay in gabagabada kulanka golaha wadatashiga qaranka aragtidooda ku aadan laga qayb gali doono si doorkooda u qaataan doorashada xilligan khilaafka iyo sidoo kale muranka badan sababtay ayaana la qorsheynayaa in kulankan noqdo midkii ugu dambeeyay oo go'aan rasmi ah waqtiga dalka doorashadiisa la soo gabagabay doono lagu gaarayo ugu dambeyntiina maamulka Puntland ayaa xirxiray wadayaasha gawaarida tagaasida ah booliska Puntland ayaana faahfaahin ka bixiyay ee gobolka Bari ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Puntland ee booliska ayaa maanta magaalada Boosaaso waxay ku xirxireen qaar kamid ah wadayaasha gaadiidka tagaasida ah kadib markii lagu eedeeyay inay warar been abuur ku faafiyeen sida looga barakacay ee magaalada Boosaaso dagaaladii dhawaan ka dhacay darawalada la xiray ayaa gaaraya ilaa 9 kuwaas oo lagu eedeeyay inuu hormood ka hayeen qalqalgelinta dhanka amniga ee bulshada Boosaaso si ay dadku barakacaan kadibna lacag uga sameeyaan waa sida lagu xusay war taliska hadalka booliska ka soo baxay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Direer oo shir jiraayid warbaahinta ugu qabtay magaalada Boosaaso ayaa ka digay dadka u sheeganay inay ku howlan yihiin wararka been abuurka in lagu qalqalgelinayo amniga Boosaaso laguna barakiciyo shacabka in tilaabo sharciga waafaqsan sida kuwan xabsiga lagu taxaabay ay xabsi gali doonaan waxaa saacad u sheegay in qaar kamid ah dadka tagaasilayda ah ay dadka ka barakiciyeen si lacag u helaan wuxuuna ugu baaqay arrintaas inay ka waantoobaan isagoona ciidamada amniga faray inay xaqiijiyaan dhammaanba amniga magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari waxaa bishii December ayna soo dhaafnay sanadkii 2021 ka dhacay dagaalo u dhaxeeya kuwa ciidanka maamulka Puntland iyo kuwa hay'adda BSF kaas oo saameyntii ku reebay wali ka taagan tahay magaalada Boosaaso waxaana Boosaaso haatan ku joogaan ee mas'uuliyiin u jooga xalinta arrinta xiisada Boosaaso si wax looga qabto Siciid Dani iyo Ilmo Diyaanana wada hadal rasmi lagu furi lahaa xiisadaasi mar kale u soo noqon lahayn
xafiiska xuquuqul aadanaha ee Puntland ayaana xukuumadda Puntland ka dalbaday in ay cadeyn la timaado meelna ku soo sheegto dadkii ka barakacay dhibaatadii soo gaartay Boosaaso iyo kuwii ku dhintay waxyeelada xooggan ka soo gaartay iyo khasaare hantiyadeed kuwa ka soo gaartay dagaaladii Boosaaso. inta ayaan ku soo gabagabeynaa tabinteena habeenabaad kala socoteen channelka wararka Warqad News TV. fadlan mid la mid ah inta kulmi doona waxaan kaga tagnaa nabadgelyo. muuqaalkaasi share garay oo saaxiibadada kale la sii wadaag page-keena YouTube-keena ku soo biiro Warqad News TV. mahadsanidin.